لما dadka meesha isugu yimid ama ha ahaato ururka jawxa oo ugu horeeyo admiral maxamed kamar cusmaan iyo baalashiisa golaha dhexe iyo gulinta ama ha ahaato ummadda weyn ee soomaaliyeed ee meesha isugu timid waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marlaba walaalayaal maanta waa maalin weyn oo aan isugu nimid inaan aayaheena ka tashado ha ahaatee waxaan nimid goobtan qabridaha ee caasimadda ah ee soomaali taariikhda ku leh waxaan u nimidna waxay ahayd burbur badan baa ka dhacay hase haddee alxamdulillah maanta guul baan taagana guusha aan taaganahay waxay tahay halkankaas haddii aanu jiri lahayn halkanka jihada horeynta ogaaniyadii ay soo gashay haddii aanu jiri lahayn maanta qiimaha aan ku lehnahay etoobiya kuma lahaaneen dhab ahaantii marka la yidhaahdo sababtoo ah dowladii waxaa wax looga dhacsadaa mucaarad afka haddii mucaaradka afka la waayo mid xabadeed waa lagu khasbanyay markii mucaaradka afka ahaa iyo aan wada tashanna iyo waddanka waa wada leenahay wax loogu diiday jawxa waxay dadka ku qasabtay inay duurka u baxaan xabad ridaan xabaddiina maanta guushan maanta aan haysanno marka walaalayaal hadda waxaa ilaahay lagu mahadiyaa in guushii la gaaray ay nala garteen walaalaheen jawxa oo ay hubkii dhigeen oo maanta etoobiya waxay taagan tahay bartii 91 la taagnaa keliya waxaa annaga noo dheer oo 91 meeshaan taagnin maanta aan kaga sokaynaa waxay tahay inaan wax barannay in dadkeena uu ilbaxay in aqoon iyo waayo aragnimo iyo wax walbo la faa'iiday laakiin xag horumar waxba lama faa'iidin etoobiya 90% in ka badan ka hooseyna waxaana waa godob iyo xumaan iyo bugtan loo qabo soomaali haddaan waxaan kaga bixi karnaa walaalayaal tafaraaruqii aan ku soo jirnay ilaa iyo maalintii ugu horreysay dowladka la dhisay iyo maanta tafaraaruqa aan ku jirnay ee la isku kaayadirayay ee nala qaybinayay inaan ka baxno oo aan midnimo yeelano midnimo haddii aan la helin waxaaba yaraatee noo kordhayo ma jirto marka midnimo aan helo walaalayaal jabhadda maanta jaanis bay haysataa jaaniskaas wuxuu yahay fikirka maanta aad wadaan haddii aad ka qabaysaan waan ubaa deegaanka 100% in lidin taageeri doono maxaa yeelay dadkeenna horu mid badan ugu soo hangoobay dowladihii la dhisayay ama axsaabtii la dhisi jiray oona soo maray magac kastaba ha lahaadeen mar kastaba waxay isu beddelaysa soomaalinimo iyadoo la leeyahay yaa haddana waxaa la watay qabiil iyo danagaal aa la watay marka taa iyada haddii aad ka baxdaan waan ubaa ummadda soomaaliyeed qoys kastoo ahaata inay taageeri doonto marka sidaa daraaddeed waxaan tala ku soo jeedin lahaa in xisbiga aad dhisaysaan iyo siyaasadda aad gelaysaan dhammaan soomaali ay ka wada muuqato adeer nin golo dhexe galay haddii dhammaan golaha dhexe ogaadeen aad ka dhigtaan waxay idin kordhinaysa ma waa xaqiiqa waxay kordhinaysa laakiin marka aad ummadda soomaaliyeed oo dhan ay iska taxaaragto muraayadaas cid walba inay raacayso idinku khasban cid walbo yaa idinku khasban marka jaaniskaasaad haysataan ha iska luminina
aad iyo aad baan idin taageersannahay waan idin soo dhawaynaynaa waan idinla shaqaynaynaa laakiin barnaamijkiina siyaasadeed ha noqdo mid dadka ka iibsamo oo laydinku jeclaysto ha ahaado hogaankii noqda dalladii noqda laakiin dadka ha iska wada dhex arko siyaasadda jirto qaabkaad wax ku wadaan dhammaantii dadka ha iska wada dhex arko dadka hadda inta badan intaan ogaadayn karin waxay ka qayliyaan magacan ONLF aniga in badan waa ka wada hadalnay mas-uuliyiinta sare ee ONLF haddana maanta fikirkii ayaantii hore aan qabay laftayda markii meelo badan aan wax ka eegay dadkan khasaaro badanaan ku soo gaaray oo dadka kale aan ku soo gaarin magaca ONLF marka insha allah dib dhow waan uga tashan doonaa magaca haddii la bedelay haddii sidiisa aan ku qaadanaynaba waa mid ka tashigiisa leh haddii sidiisa loo daayana hadda wax kale kuma jiraan laakiin ka tashi badan baa loo baahanyay is-arag badan iyo wada shaqayn badan yaan idin badan qaadaynaa odayaasha guurtida deegaanka haddii aan nahay annagoo diyaar baan idin nahay goob kasta oo aad istaagtaan inaan idin garab istaagno inaan idinla shaqayno inaan wax idinla qabanno si ummaddeenna ay u soo kabato dib u dhicii ku dhacay ay uga soo kabato waan idinla shaqaynaynaa waan idin taageeraynaa waan idin soo dhaweynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu